maanta waxaan ka hadlaynaa ama aan falanqeynaynaa waxa la yiraahdo siyaasadda. Siyaasad everywhere siyaasad, meel walba siyaasad, meelihii cuntada lagu cunaay siyaasad, meelihii shaaha lagu cabaay siyaasad, jimki siyaasad, suuqi siyaasad, baabuurta iyo basaska iyo tareemadina siyaasad, everywhere siyaasad. adiga siyaasad waxa ka aaminsan tahay commentiga ku soo qor. qofkii qof dilo dilaa waay, qofkii qof dilo waa dilaa waay, qofkii ummad barakiciyana waa dilaa waay. waxba yaa la isku qarqarin. waxa la yiraahdo siyaasadda oo anaga nabaabiiyay Soomaali Maxamed oo dhan waxa baabiiyay waa siyaasad. qof iskuul uga soo baxay ama qof jaamacad uga soo baxay aniga businesskiisa afaariis kuma jiro. wax siyaasad la dhaho asaga waxba u soo bartay. laakiin anaga dhalinyarada Soomaaliyeed oo rag iyo dumarba iskugu jiro waxaan siyaasadda ay falanqeeyaan horta siyaasad maxay ka macno tahay. waa waxa kali aan ku wareeraba in qof loo dilo qabiilka uu ka dhashay siyaasad xaqee ka soo gashaa. reer dhan oo meel fadhiya in la barakiciyo siyaasad xaqee ka soo gashaa. siyaasad waa inuu qofka madax noqdaa, xil haya, loo foodgareeyaa. yacni waa waxa dawlad ay ku dhisan tahay waxa lagu dhahayo siyaasad. ma ahan qof walaalka ah inaad siyaasad ku dishid. ma ahan Soomaali meel degan inta barakicisa inaad tiraahdo siyaasad. dadka xilka noo haya ama dadka Soomaaliyeed oo siyaasadda ku jiro arrintan way ka madax bannaan yihiin. arrintan waxay qusaysaa waa dhalinyarada rag iyo dumar Soomaaliyeed waxa ay ka fahamsan yihiin siyaasadda waxa la yiraahdo. siyaasadda waa waxa ku dilay oo ku baabi'iyay oo dad baa kafeeyaal iska heystaba maanta dhan meel iska deganba dhiisiyeeba noqdeenba say maanta dhan reer uga sheekeynayeen ee afka u qalalay aniga reer hebela aniga saana aniga ku barakiciye. waxaasi siyaasad ma ahay waa faanka iyo siyaasadda isku meel ma soo galaan. siyaasad qofka markuu wax ku qabto taariikhda qoraysa, history will name you. laakiin markii siyaasad uu wax ku jiid gareeyo taasi siyaasad ma ahay waa qiyaano. Soomaali Maxamed aan soo noqonaa mar. dhalinyarada Soomaaliyeed oo rag iyo dumar iskugu jiro meel walba ay joogan adduunka waxay ugu jecel yihiin siyaasad. adigu maxaad siyaasad ka aaminsan tahay? commentiga hoos ku soo qor aan kula qaybsano waxaad adigu aaminsan tahay. waxaad adigu aaminsan tahay aday siyaasad tahay. waxaan ka sheekeynayna dhan waa wada siyaasad. siyaasad in wax la qariyo, wax la shooteeyo, dad la isku diro, dad la baabi'iyo, meel la barakiciyo. saas ma siyaasad taqaana. taasi siyaasad maaha. siyaasad waa in uu qofka yacni uu yahay qof wax u soo bartay siyaasadda. maahan anigoo aan qadeyn iyo adigoo aan qadeynin inaan maanta dhan siyaasad ka wada sheekeyno. agoon la barakiciyey iyo dad la baabi'iyey iyo dad la xasuuqay iyo ummad la dilay waxaad igaga dhigaysaa siyaasad waxay tahay. qodobka siyaasadda la yiraahdo waa wax Soomaalida aysan baran. Soomaalida baba yaqaanaan baba inta wax u soo baratay oo xilka heeso arrintan way ka madax bannaan yihiin. inta aniga aan ka hadlayo waa inta dhalinyarada oo wixii wadanka oo soo baxay oo dadka u ahaa flowerkii wadanka u soo baxay aduu siyaasad ka sheekeeyo. dadka wax u soo barto jaamacadaha u aaday siyaasad waxay tahay. siyaasadda lagu sheegay xisaab waay. qofka aduusan xisaab aqoonday siyaasad ma yaqaano. siyaasadda maadaama siyaasadda iyo xisaabta ee isku meel ka baxaan weligaaba iskuul maada aadine waxaan aniga igaga sheekeynaysid adigu xagee ka soo baratay ma jirto. okay gabdhaha guurka iyo guriga guryaha qaarkood waxay ku dhisan yihiin siyaasad. gabadha reerka liid gareyso waa siyaasi, ninkana wuu ka dhageystaayo waa dhageysto wacan. siyaasad reerkii iyo gurigii iyo mustaqbalkii xitaa tareemadii inaan siyaasad kaga sheekeyno 30 sano la soo dhaafay. waxaan isku xasuuqayna waa siyaasad, waxaan isku dilayna waa siyaasad. siyaasad ereyga la yiraahdo hadaan aniga ku macneeyo aniga waxaan ka aaminsanahay anigu siyaasad waxaan ka aaminsanahay qiiq oo caawa alla meel uu u socdo iyo meel uu ka socdo iyo cid iska leh iyo cid ka mas'uul ah waaba tornado ummadda Soomaaliyeed la soo dhaxligay. siyaasadda lagu sheegay marka
ووحيابوينك فالك جنك وحيابوين ومدى اي سنفهمسين وواحد عادي وجهد لكن لقد دعيه ان اي وحيين سياسة اللي شيء مركا انت وحبرتي حلك هيسو سياسة معناها ويفهمسين لكن انا قاعد يرو سياسة وحلا ده ما نقارن شغل نكملهين وقت انت سياسة نوقع انتي هنوقع اكاتو dad waxaa jiray aan qadaynin dad waxaa jiray aan waxba cunin oo maanta dhan wuxuu ka sheekeynayaa siyaasad ma yaqaan caawa Allah siyaasad waxa ay tahay war siyaasad waa tan umada barakacisay meeqa kun oo xira qaxooti oo Soomaali ee ku jirta adduunka ku yaala inta ku taalana inta meesha ku jirto oo xirada qaxootiga ku jirto waxa meesha keenay waa siyaasad waxaan marka adi ka sheekeynaysid caruurtaadii yaa kuuladan nolol fiican ku jirtaa kaarkii cuntada kugu soo dhacooya shabshabtiya qaadanoosa ceertiya qaadanoosa dad xira qaxooti ku jiro dadkaas ku dacdacsanoosa marka siyaasadda waa dacdacsi iyo meel qiiq u ka socdo qiiq meel u ka socdo waxa rabtaa inaad dadka uga dhigtid inay wax jiro yihiin saaxiibkay ka sheekeyn jiray siyaasadda iyo saaxiibaday siyaasadda ka sheekeyn jirtay runta aad rabtid adiga guri barwaaqad ku jirtaa guri ladana ku jirtaa dadan caawa alla aan qadeynin oo waxba cunin markaad siyaasad ka sheekaysid macnaha siyaasad adiga umada uga sheekaysid waxay ka macna tahay dadka qaxootiga ku jira inaad ku diganaysid oo dadka qaxootiga ku jiro adiga ay ku baashaalaysid ummadaha barakacayaashana ina adiga koow mas'uul ka tahay siyaasiyiinta waaweyn Soomaaliya arrinta hadda aan ka sheekeynayna anagu way fahamsan yihiin siyaasad waa qiiq waa wax aan la arkin oo aan muuqan waxaan aan isku heysano in reer la isku ximiyo oo qabiil la isku ximiyo waa wax carabaha nooga imaaday waxa anaga shuqul ku leenahay Soomaali ma xamili karno siyaasad ma xamili karno intii dhimatay Allah u naxariisto inta nool hal badbaadiyo intii dhimatay Allah u naxariisto inta nool hal badbaadiyo waxa la yiraahdo siyaasad anaga shuqul ku malin banaankan ka taaganahay caawa alla inta la islaayay inta la barakiciyay inta xaafada laga soo raray inta qaxooti laga dhigay qofa wuxuu ku faanoyaa maanta nin baan waxaan ku dilay laamiga dhexdiisa maxaa u dishay adii lagu yiraahdo wuxuu kaaga sheekeynaa siyaasad war qof dilay siyaasad ma noqoto qof nafta ka qaaday siyaasad ma noqoto qofka markuu qof dilo waa murder waa dilaa xukun u baahan yahay qofka ka sheekeynaya siyaasad kan wax dilay iyo asaga waxba isma dhaaban marka dadka ladan oo nolosha fiican ku jiro oo barwaaqada ku jiro oo maanta siyaasadda nooga sheekeynayo aniga idin jawaabaye commentiga hal idin ku arko waxa lagu sheegay la dhahayo siyaasad waa qiiq adaad adigu aaminsan tahay qiiq adeeg ku taala 8 daqiiqo okay waxa maanta dhan lagaaga sheekeynaya dhanna waa siyaasad qof walba TV wuxuu soo fariista siyaasad inuu adiga kaaga sheekeeyo reerka adiga ka dhalatay inay siyaasiyiin badan leeyihiin reerka ninkan uu ka dhashana siyaasiyiintooda inay yirihiin waxa la rabaa challenge in la abuuro buuq la abuuro sheeko umada isku laayaan waxana soo barakiciyay maanta oh my god waxana soo barakiciyay maanta oo Soomaali Maxamed xerooyinka qaxootiga galiyay wallahi siyaasad waay waxaan umada uga sheekeynaysid siyaasad su'aalan qabaaye adigu siyaasad maxad ka aaminsan tahay adiga ani soo fiirinaya siyaasad maxad ka aaminsan tahay anigu waxaan aaminsanahay as Soomaali ahaan as a comedian ahaan anigu waxaan aaminsanahay bulshada Soomaaliyeed inay siyaasadda lagu qatalay oo caawa alla wax ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan waxaysan ayaga ogeyn aysan akhbaar u haynin inay iskaga dhex jiraan siyaasadda lagu sheegay marka taas waay dhamaantiina kor u qaada share gareeya like u qabta subscribe saara dhamaantiin waxaan idinka sugayaa aan commentiga idinkaga arki doonaa sidaad u falaqaysaan waxaad ka aaminsan tihiin siyaasadda fadlan no qabiil waxaan ka hadlaynaa siyaasad waxa adigu aad ka aaminsan tahay ma siyaasad inay wax dhistaad ka aaminsan tahay ma siyaasad inay wax dumiso adigu ka aaminsan tahay anigu waxaan ka aaminsanahay
khasaaraha ugu badan Soomaali Maxamed soo gaaray 30 sano waxa ugu weyn waa siyaasad siyaasadii waxa falanqeeyay dadaan jaamacad aadin iskuul aadin wax u soo baran qofka iskuulka aada iyo qofka iskuulka aan aadin waxay ku kala duwan yihiin anigu waan ku sheegi karaa qofka iskuulka aada naxariis uu leeyahay wax yar xogaha iskaga dardaraato raba laakiin naxariis uu leeyahay qofka markuu jaahil yahay oo san waxba baran jaamacad uu saadin iskuulna uu saadin siyaasadda wuxuu u maleynayaa wixii lagu soo koriyay waana lagu soo koriyay because dad ba say u soo wadeen bay waxay soo dhexgeliyeen qiiq annaga dhan as dhalinyaro ahaan rag iyo dumarba waxaan aaminsanahay siyaasadda in ay tahay shayga ugu xun oo qofka Soomaaliga qofka ah in aysan asaga ahaan u fiicneen inuu siyaasad ka sheekeeyo adoosan aqoonteeda iyo garaadkeeda Ilaahay siin siyaasadda lagu sheegayo waa gift Ilaahay bixiyo qofka markuu jaamacada aado oo wax soo barto oo waxaan waxay waa chapter to chapter ma ahan adoo ka imaaday mugdi inta qiiq soo dhaxgashid ina umada ku tiraahid siyaasadda saamwa fiiri waxana baabi'i waa siyaasad waxana dilay waa siyaasad waxa Soomaali caawa alla dhibaatada ugu wacan waa siyaasad qofka wax u soo bartay kaas istikhyaarkiisu leeyahay laakiin anaga dhalinyaro ahaan walaalayaal siyaasad aniga ahaan shaqul kuma lihi laakiin adiga shucuurtaada sida ay tahay iyo sida adiga u aaminsan tahaba commentigan ka arki doonaa wiil baa maalin wuxuu igu dhahay reer dhan oo wada socdaan intaan qori qaata kagisi ta siyasad maaha hey that's not siyasad maaha brother you take somebody's life waxa siyasad maaha wuxuu ku leeyahay laamiya inta kala umad baabiin jiray waxa siyasad maaha wuxuu ku leeyahay checkpoint inta fariisto aan habeenkii xaafada u soo dhici jiray waxa siyasad maaha that's not siyasad waxa adiga siyasad ka aaminsan tahay commentigan ka arki doonaa dhamaantiin waxaan idin leeyahay waa anigoo abtiliimaana share iyo like barnaamijyadana inta way ka sii badan doonaan subscribe kana hanaga xasdina wariya hanaga xasdina acha